أقبلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم. أقبلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم. رمضان الآلاء والنعم. أقبلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العلي العظيم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين، نبي الرحمة والهدى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون. أيها الأحبة، qofka mu'minka ihi waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku galladaystay, waxyaalaha ugu waaweyn nimcooyinka ilaahay uu qofka muslimka ihi siiyay, waxaa ka mid ah cumri dheer inuu ilaahay ku siiyo, camal wanaagsan oo saalix ahna kuugu daray. طول العمر مع حسن العمل من أسباب الفلاح. inuu qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala cumri dheer siiyo, camal saalix ahna uu ugu daray, waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka muslimka ihi uu oga hormaro keyrkiisa uu darajo sare ku gaaray. waxaan maanta isyar dul istaagaynaa fursadda khaaliga ahi ee soo socotay ee bisha ramadaan. fursadda aadka iyo aadka u weyn ee bisha ramadaan ee soo socoto, qofka muslimka ihi ee ilaahay uu fursad u siiyo inuu gaaro, fursaddaasi sida ay khaali u tahay iyo sida aada oga hormarayso dad badan oo ilaahay uusan gaarsiinin, fursaddaasi uusan siinin, ee sanadkii hore kula noolaa, kula cunayo, kula cabayay, ee haddana aanan joogin, ee haddana aanan fursad loo siinin inay mataqaanaayay ka qayb qaataan bisha ramadaanka kariimka ihi. marka nimcada ilaahay uu adiga ku siiyey, fursadda uu ilaahay subxaanahu wa tacaala adiga kuu siiyey inaad gaarto, ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kugu daro inuu ku waafajiyo inaad ka faa'iidaysatay. ayuha alaxibatu fi llah, waxaynu isdul istaagaynaa xadiis fi musnadi imaam axmed ah oo asheykh axmed ashaakir daraasada xadiiska markuu soo khatimay isnaaduhu saxiix uu ku gabagabeeyey, oo qiso aada iyo aada u qeymo badan ah, oo qofka muslimka ihi dareensiinayso fursadda inaad qofka cumri ooga dambayso daaco iyo khayr iyo camal saalixna ilaahay kuugu daray inay wax khaaliya tahay. laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa waafajinta iska leh. boqolaal ayaa ramadaan gaarto oo inay ka faa'iidaystaanna aan la waafajin. qisadani waa qiso cajiib ah. waxay tusinaysaa qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala bir ramadaan uu gaarsiiyo inay tahay meel lagu kala hormaro, inay tahay meel tartan ee lagu tartamo oona lagu kala tago. qisadani xadiiska ku timid waa qiso cajiib ah. طalxa bn abi cubaydillaah ayaa warinayo. wuxuu yidhi raximahu اllah waradya canh, nabiga salى اllahu calayhi wasalam waxaa u yimaaday laba nin. labadaa nin islaamkooduna mashhuur ayuu ahaayo hal mar bay diinta soo wada galeen oy soo wada islaamayn oo kalama horeynin. hase ahaatee wuxuu yidhi labadooda midbaa aada iyo aad, wakaana axaduhumaa ashadda ijtihaada min alaakhar, midkood ayaa dadaalka cibaadada iyo khayrka aada iyo aada ooga darnaa oo ooga dadaal badnaa midka kale. waa kow. iyadoo sidaa ay tahay ayaa midkii dadaalka badnaa ee saaxiibkiisii ay isku marka soo islaameen ka dadaalka badnaa xagga cibaadada iyo khayrka iyo daacada ayaa wuxuu u kacay
ghaswo iyo jihaad diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala sara u qaadideeda iyo horumarinteeda. wadadaasi isagoo ku sugan buu ku dhintay oo wuu shahiiday. wadada isagoo ku sugan ayuu dhintay oo shahiiday. ayib, kadib kii saaxiibkiisa ahaa ayaa sanad ka dambeeyey, waa midkii laga dadaal badnaa ayaa sanad ka dambeeyey noloshu, kadibna wuu geeriyooday. saxaabiga dalxa wuxuu yidhi waxaan arkay qofka riyada uu arko ayaan arkay. waxaan arkay buu yidhaahday aniga oo albaabka jannada taagan, labadii ninna ay ila taagan yihiin. wuxuu yidhi jannada ayaa waxaa ka soo baxay malag min malaa'ikati illaahi tabaaraka wa tacaala. wuxuu yidhi wuxuu u horyeeray oo albaabka jannada uu ka furay oo uu yidhaahday waa lagu idmaya soo gal midkii dambeeyey ee sanad ka dambeeyey saaxiibkii oo laga dadaal badnaa. jannaduu ka horgalay. xoogaa kadib buu ninkii haddana soo baxay oo midkii kale buu yidhaahday waa ninkii dadaalka badnaa oo haddana shahiiday. jannada soo gal buu yidhi hadda lagu idmay. aniguna kadib waxaa yidhaahday buu yidhaahday ma lagu idmine noqo, waan soo kacay buu yidhaahday, maadaama uu dee nool yahay weli muusan dhimanin. dalxa bin cubaydillah riyuu ku jira. riyadii baan dadka ooga sheekeeyey buu yidhi. dadkii aad bay arrinka oola yaabeen buu yidhaahday. arrinkii baa nabiga sala allahu calayhi wasalam gaaray salawaatu rabbihi wasalaamuhu calayh. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhaahday min ayi dalika tacjabuun, arrinkaasi maxaad kala yaabantihiin? dadku waxay yidhaahdeen nabi allow ninkani ayaa ninka kaloo jannada ka horgalay albaabka jannada looga horfuray ka dadaal badnaa, haddana wuu shahiiday. sideebaa midkani jannada looga horfuray oo uu oga horgalay? nabiga sal allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi su-aal buu weydiiyey. wuxuu yidhi alaysa qad makatha hada bacdahu sana, miyuusan nolosha iyo cumri fursad ilaahay uu siiyey sanad miyuusan ka dambeynin? qaaluu balaa, haabay yidhahdeen saxaabadu. qaala nabiga wuxuu yidhi de wa adraka ramadaana fasaamahu, soo gadaashiisa ramadaan inuu ilaahay gaarsiiyey fursad soomuu u siinin oo haddana muu waafajinin inuu soomo? qaaluu balaa baa yidhaahdeen haa. qaala nabiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi soo salaado badan iyo sujuud badan muusan oga dambeynin? qaaluu bala, haa baa yidhahdeen nabi allow. qaala nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam falamaa baynahumaa, intaa baad aragtaane inii laga horfuray jannada baad aragtaane, falamaa baynahumaa, qadarka iyo masaafada u dhaxayso darajooyinkooda labadaa nin, abcada maa bayna aلsamaaءi wاlard, waxay ka fog tahay cirka iyo dhulka inta udhexayso ayay kala horeeyaan. allahu akbar. ninkaasi ninka kale waa uu ka dadaal badnaayo muxuu oga hormaray? waa nin shahiiday, markay noolaayeenna ka dadaal badnaa. wuxuu oga hormaray inuu ilaahay fursad u siiyey inuu gadaashiisa sanad noolaado, ramadaanna gaaro. wa adraka ramadaana fasaamah, soo ilaahay fursad uma siinin gadaashiisa inuu ramadaan haleelay oo uu soomay? soo leylat lqadrigii ramadaanka kuma jirto oo khayrun ka khayr badan alfa shahr, 1,000 bilood ka khayr badan, 83 sano iyo 4 bilood ka khayr badan baa layidhi. mid lama dhihin, mila lama dhihin, mila. si fiican inaad nusuusta iyo shareecada qofka uu fahmaa muhim ah. ka khayr badan, khayrun baa layidhi, ka khayr badan. intay ka khayr badan tahay ilahay baa og, laakiin 83 sano iyo 4 bilood inay ka khayr badan tahay baa noola caddeeyey. alfa shahr. haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu fursad kuu siiyo inaad ramadaan gaarto oo aada soonto, waxaa weeye inaad ka hormarto darajooyin badan qof aanan la gaarsiinin, inaad ka hormarto darajooyin badan qof aan la waafajinin. axibatii fi illaah, waxaa inagu soo food leh oo inagu soo socotaa bishii ramadaan ee lagu kala hormarayay. saxaabigani waad arkaysaa hal mar bay islaamku soo wada galeen,
intii la noolaa wuu ka dadaal badnaa, laakiin sanad fursad gadaashiisa la siiyey oo ramadaan la haleeshiiyey ayuu intaasoo dhan ka hormaray ninkii shahiidka ahaa markay noolaayeenna ka dadaal badnaa. macnaheedu waxaa weeye qofka muslimkii inuu ku ducaysto inuu cumri dheer iyo camal saalixa ilaahay siiyo. khayru nnaas man taala cumruhu waxasana camaluhu. dadku waxaa ugu khayr badan waxyaalaha khayriyadda iyo lagu khayr badno way badan tahay, waxaa ka mid ihi qof cumri dheer iyo camal wanaagsan la siiyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa nafsadayda iyo tiinuba inuu inagu irsaaqo inaynu gaarno ramadaanka soo socdo iyo ramadaano badan, inuu ilaahay ina siiyo cumri dheer iyo camal saalix ah. waxaa muhim ah camal saalixa inaad ku kabto. cumri dheer oo camal saalixa aa wadanin haddii lagu siiyana waa cagsigii, qofka ugu shar badan baad noqonaysaa. waa cumriga dheer shar iyo dunuub baad ku kasbanaysaa. laakiin cumri dheer maca alcamali saalix, ilaahay subxaanahu wa tacaala nafsadayda iyo tiinuba iyo qof kasta oo muslim ihi waxaan u weydiinaya inuu ku irsaaqo cumri dheer iyo camal saalix ah. axibatii fi llah, haddaba aynu u diyaar garowno bisha ramadaan. qof marti ay ku soo socoto oo aanan u diyaar garoobin dhibaatada ay leedahay. nafsadaada marka sii kici, nafsadaada niyadeeda iyo mooraalkeeda sii kici, adiga oo mataqaanay himadaada iyo casiimadaada iyo go-aankaaga uu sareeyay ramadaanka ha kuu soo galo. adigoo himadaada heer sare marayso ramadaanka ha kuu soo galo. adiga oo jadwalkii qur-aanka aad ku dhammayni lahayd sii diyaarsatay soddonkaa beri sidaad uga faa'iidaysan lahayd, inta jeereed subxaan allahi dhihi lahayd, inta jeereed nebi maxamed ku sallin lahayd, inta jeereed qur-aanka dhammayn lahayd, adiga oo timetablekaagii sii diyaarsaday, guriga iyo familkana la wada diyaariyey, timetable bisha ramadaan looga faa'iidaysanaya yahay inoo soo galo bilaahi calaykum. war waa ayaama macduudaat, war waa maalmo kooban, war waxaa khasaaray raqima anfuhu qof ramadaan uu u soo galay oo aanan loo dembi dhaafin. macnaheedu waxaa weeye aanan la imaanin tartiibaadkii iyo asbaabtii iyo acmaashii loogu dembi dhaafi lahaa, aanan ramadaanka khayr la imaanin. war qofka sharta iyo dunubiga ku jirow, war gacmaha kala bax. qofka xaaraanta ka shaqaysanayow jooji, qofka xumaanta ka shaqaysanayow jooji, qofka xumaanta ka shaqaynayow jooji. yaa baaqiya shari aqsir, war qofka sharta doonayow ay gacmaha kula jirow gaabso. bil khaali baa soo socotaay. bishan haddaan lagu dembi dhaafin sankaaga dhulka ku dhacayay ee khasaartay. sankaaga carada taabay waxaa wey qofka meesha ugu sharaf badan oo uu kor u taagayo waa sankiisa. sankaaga carada hadduu taabto macnaheedu waxaa weeye waa toogtay ood ba'tay ood khasaartay wey. ilahay waa ina khasaarin. axibatii fi llah, walaalahayga khaaliga ahow, aynu u diyaar garowno martida khaaliga inagu soo socoto. ilaahay subxaanahu wa tacaala jala jalaaluhu wacaduma sha'nuhu nafsadayda iyo tinu waxaan u weydiinayaa inuuna waafajiyo ka faa'iidaysigeeda caafimaad iyo nabadgelyana inugu gaarsiiyo, kuwii ka faa'iidaysana ilahay naga dhigo. ilaa aynu iskaga nimaani doono xalqadani xalqada xigto anakoo khayrka iyo wanaagga isu sheegayno. sidaas ayaynu idinka tegayaa. hada wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. أقبلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم. أقبلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء